dalalka ugu awoodda badan dunida muslimka ayaa codsaday xubinnimada isbahaysiga BRICS taasoo dhabarjab ku ah dalalka ku bahoobay G7. in ka badan 40 waddan ayaa ilaa iyo hadda muujiyay xiisaha ay u qabaan ku biirista dalalka BRICS oo ah waddamo ku kacsan awoodda ku urursan gacanta reer galbeedka oo keliya. Bakistaan ayaa ku biiraysa isbahaysiga dhaqaalaha ee BRICS sanadka soo socda siduu sheegay safiirka cusub ee dalka Bakistaan uu dhowaan u magacaabay dalka Ruushka Maxamed Khalid Jamali. mar uu waraysi siinayay wakaaladda wararka ee TASS waxa uu sheegay in waddankiisu uu mar horeba dalbaday xubinnimada isla markaana uu ku xisaabtamayo caawinta Ruushka dhinaca hab aqbalaadda ururkan. Ruushka ayaa guddoomiyenimada BRICS la wareegi doona sanadka soo socda ee 2024. Bakistaan waxay jeclaan lahayd inay qayb ka noqoto ururkan muhiimka ah, waxaana ku jira hanaankii aan kula xiriiraynay guud ahaan dalalka xubnaha ka ah iyo Ruushka gaar ahaan si uu nooga taageero inaan xubin ka noqonno isbahaysiga BRICS. sidaas waxaa yidhi safiirka cusub ee Bakistaan ee dalka Ruushka u jooga. isbahaysiga BRICS wuxuu hadda ka kooban yahay dalalka Brazil, Russia, India, China iyo South Africa. isbahaysigan waxaa ku biiraya dhowaan sida la sheegay dalalka kale ah Argentina, Masar, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta oo kulligood la wada sugayo inay isbahaysigan xubin ka noqdaan bisha Janaayo. Ruushka ayaa isaguna ku qalqaalinaya Turkigu inuu isbahaysigan xubin ka noqdo sida ku cad qiyaasaha falanqeeyaasha dhaqaalaha dunida. isbahaysiga BRICS marka la ballaariyo waxay sheegeen inay dhaqaale ahaan ka weynaan doonaan G7 oo ah isbahaysiga waddamada horumaray ee warshadaha leh oo kala ah dalalka Maraykanka, Canada, UK, Faransiiska, Italy, Jarmalka